dadka maaragtay raalli ahaada taleefona meeshaan dhacay waana kaaga mahadcelinayaa dadka shaqada u haysid insha allah adiga odagaado because hadduu oday fiican ku qabin dadka uma istaagteen liibaana nin fiican kheyr allaha siiyo marka waxaan ku leeyahay nuguna salaan dumaashigay caruurta eedadii habarta u ahayn igu salaan kheyr badan ilaah ku siiyo ilaahayna ka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أيان لول جنل كان كدعوة نسان أيان لول جنل واي أصحابت جنل كيكو حيرو محاد الله يسود وهذا جنل كلايكتا يشارك يكومنتيغا إن شاء الله كإلاوينا وأنا إذا كده مهد علينا يا سيدا جنل كو حيرنتهين كومنتيغا دينا يو دعادينا ما شاء الله وأنا كده مهد علينا يا أصحابت عصبنا حان لي هاي أي سمرتين نسود وهذا تسكراب جري جنباليلكana furta si aad u aragtiin waxyaalaha ay walaashin soo galiso iyo barnaamijyada ay soo dhigto saa ula socotaan maxaan rabaa inaan ka hadlo walaashay farxiyo waxay tiri waxaan u baahanahay in lila caawiyo dadka naafada dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ka codsatay farxiyo walaal waxaan nahay gacantaada midig iyo bidix insha Allah horena waa kugu sheegaanay muqtaar kulama soo hadlin waa jeclaa inaan kula soo hadlo laakiin mashquulkayga iska badan insha Allah laakiin waa kula soo hadli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waana kula caawinaynaa farxiyo markay leedahay halila caawiyo ayada caawimaad uma baahno laakiin dadkaas walaalaheed ah ee dareemaysa ee u kacday ee rabtaa in lala caawiyo insha Allah ummadan waxaan rajeynayaa kulli inaan farxiyo u istaagno oo la caawino dadka baahiyaha gaarka qabaan ee u istaagtay ayadoo baahi gaar qabto oo gurigeedana ka shaqaysanayso reerkeeda iyo caruurteedana haysato oo hooyan inay banaanka u baxdo ay dadkaas walaaleed ay caawiso ugu yaraan marka u qabanaysa taa ay dhiirigelin u samayso marka insha Allah waxay u baahan tahay farxiyo in la sibood gareeyo la garab istaago qof kastana insha Allah mas'uul ka saaran inay ma aragtay dadkaas u kacaan ee walaashood la caawiyaan sababtay tahay iyada qof ku qasbay malahan ayada ayaa isdirtay ilaahay dartiis u shaqeynayso annagana insha Allah waa inaan la qayb qaadano farxiyo waa jeclahay dadka naafada dadka caawiyo oo u gargaaro waa ku garab taaganahay wax alaale iyo waxay dadkaas u baahdaan oo ila soo socodsiin wax alla waxaan ka qaban karo oo intii tabarteeda waa ka qabanaa insha Allah waana jeclaan lahaa dad badan oo isku duuban oo maaragtay dadkaas kamid ah dadka waliba qurbaha joogaan oo dadka baahiyaha gaarka qabaan waxaan rajeyn lahaa inay isku duubnaadaan ee dad isku duuban oo maaragtay dadkaas wadanka jooga ogaadaan inay noqdaan iska warhaayaan oo wax maaragtay meel isku ururiyaan maaragtay ay dadka u diraan ay noqdaan waa rajeynayaa insha Allah wayna noqon doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa waagi hore wax codadka la isku gudbiyo oo sida hadda YouTube-kan ma jirin laakiin hadda insha Allah farxiyaa soo baxday walaasheen Leyla soo lakiya soo baxday waa la badan yahay insha Allah marka waxaan ku leeyahay abaayo oo ku garab taaganahay waana kugu caawinaynaa waana kaaga mahadcelinaynaa shaqada u haysid dadka maaragtay raalli ahaada taleefona meeshaan dhacay waana kaaga mahadcelinayaa dadka shaqada u haysid insha Allah adiga odagaado because hadduu oday fiican ku qabin dadka uma istaagteen liibaana nin fiican kheyr allaha siiyo marka waxaan ku leeyahay nuguna salaan dumaashigay caruurta eedadii habarta u ahayn igu salaan kheyr badan ilaah ku siiyo ilaahayna ka ajir siiyo walaashay macaanto shaqada haysid waana sida marka horena kuu sheegay ila soo socodsii qofkii aragto in wax lala qabto u baahan oo naafo ah oo wixii idinka markaas ay meesha joogtiin idinka badan isleedin bulshada u bandhig insha Allah ila soo socodsii hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan ku leeyahay kheyr badan ilaah ku siiyo jazaakallahu kheyr walaasheen ha loo istaago oo bulshada Soomaaliyeed meesha joogtiin walaasheen farxiyo tawakkal ha loo istaago shaqada hayso shaqo ciyaar ma ahan dad waxay lixaadkoodina bar maqan yihiin niyadana ka dhimatay
ay sibood garaynaysaa. dadka niyadda ka dilayan waxaan idin leeyahay ha noqonina sac ninkii laasaynta uga istaaga ku noqonina. waxaa waye dadka naafada ayagaa dhibkooda iska qabaan, idinkan ha ugu darsamina. marka bulshadaas waxay rabtaa baahiyoodii gaarka iyagoo qabaan haddana niyadoodii isku dayaysaa inay dhisto, ay u tusto ayagoo maaragtay ama lug ama gacan la inay wax qabsan karaa inay u tusto. abaa waa dadaalaysaa, kheyr badan ilaah ku sii, ilaahna kula garab galo. annaga awal waxaa wax le dira wiiljaray ku socdaan dira iyo waxaas aan ka fekerayni, laakiin kaalin weyn adi aa ka fekeraysaa ku jirtaa. sababta ay tahay dadka maxaa wiiljar la siiyaa? niyadiyaaba ka dhimatow. niyadiyaa rabtaa inaa marka dadka usoo dhistid, waa wax muhiim ah, kaalin muhiima ugu jirtaa. maasha allah, tusaale muhiima u tahay dadka. mar horaan anigu arkay tusaala kuu bixisho, tusaala tahay. marka waxaa waaye dadka niyadiiba hadday ka dhimato wiiljar la siiya muxuu u taraa? wiiljarkan way kor fadhinayaan, lug artificial oo loo geeyo hadday iska xirtaan hataa meel ay iska fadhiyaan, because dadka niyaddaa ka dhimatay. muhiimadda abaaraysidna waxay tahay waan ku arkay inay ma aragti dadka ay wax inay qabsadaan ay ku guubaabisid, ay niyadda iska dilin. kheyr badan ilaah ku siiyo, ilaah ka ajarsiiyo. maanta ayana helaysaa insha allah. intaasaan idinkugu soo gabagabeynaa walaashay. waana ku salaamay, waana ismaqli doonaa, waana kula soo hadli doonaa. waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.